ninow naxariis badanow nuunaha isiiyow naas jooga ii jilciyow jisadiis janno waay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga qaaliga waa idin salaamay dhammaan meel walbo aad dunida ka joogteen. fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkeena subscribe, like, share, comment inagu caawi, waa mahadsantihiin. cawada waxaan rabaa inaan nooga sheekay gabara asxaabnahay qiso ku dhacda iiga sheekaysa. ana waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago. waxay tiri hadda ka hor anoo joogay tiri wadamadan carbeed wadan ka mid anoo ku nool oo nin i qabo 2 caruur haysto ninkii isku xumaanay waa isdagaalnay kadib waa kala tagnay dhahday. muddo yar kadib ilmihii waa ka xaday dhahday, waa ka dhuumanay. ilmihii waa la cararay Yurubaan galnay. Yurubaan galay dhahday. ilmihii way yaryaraayeen. waxaa is dhahay hadeertaan ilmahan ha ka mashquulinin, intaa guursatid nin ha ku mashquulin, ilmahayay gaalada kaa qaadanine ee ilmahaaga iska korso. waxay dhahday ilmihii markay koreen alxamdulilah oo 12 sano kadib aan waxaa is dhahay tiri hadeertaan ama naftaan meel u raadisaa, yacni aa iska guursataa. kadib waxay dhahday meeshaan wax la guursado male, nin bacda banaanka loo soo dhigay iyo mid kaarka ilmaha inuu kula cuno rabo maahane, horta wax la guursado meeshaan ma joogaan. waxaan sameeyey dhahday waa iska joogay adi anoo iska joogo ilaahay amarkiis. waxay tiri social mediana waxaa iska baranay wiil oo dhul carbeed joogo, yacni wadamada carbeed wadan ka mid wiil ku noola waxaa iska baranay tiri social media. waa isfahanay tiri wiilkii muddaan sheekaysanaynay. kadib maxaa dhacay? wuxuu idhahay horta wiilkii aniga naag ma qabo, 5 caruura ii joogto, hooyadoodna waa kala tagnay, ilmahayga dad waaweyn waaye, yacni sax iyo qalad way kala garanayaan. ma raba hadda uqdad inay iga gasho oo aantaan eedda dhex keeno, aan naag soo guursado dhex keeno ilmihii ay yacni xoogaa ay iga xumaadaan ma rabo. ilmahayga anaa haysto, waa usoo shaqaystaa, ayagaa ishaayaan, dad waaweyn waaye, ayagaa ishaayaan, laakiin hadda aniga naag ma qabo. marka waxay tiri anigana runtaa u sheegay aan dhulal carbeed aan deganaan jiray oo maxaa dhahaa sheeg nin i qabi jiray oo 2 caruur aan u haya, ninkii aan kala tagnay oo ninkii kasoo dhuuntay, adiga wixii oo dhan waa u sheegay dhahday. kadib maxaa dhacay? wiilkii waa isfahanay tiri, waa adiga tafaahumaana dhex maray, si fiicana aan isu dhex galnay, waa isfahanay, waxaa isla meel dhignay inaan isguursano. marka waxay dhahday kolley asaga ma ii imaan karo, waxaan go-aansanay inaan maxaa dhahaa sheeg aniga aan u tago, kadib meeshaas ku aqalgalno, meesha asaga joogo aan ku aqalgalno, caruurtiisana oo ka qariyo, ana caruurteyda aan ka qariyo, ehelkeyga familiyo dhan laga qariyo, meesha 2 bilood camal aan la soo joogo, kadibna aan aniga iska soo laabto. waxay dhahday wallaahi inaa beenkuu sheegaynay tiri habeenkaa tikitka jaraayay qadkoo iigu jiray dhahday. waxay tiri anigu waa shaqeeyaa, marka anigu 12 sanaan joogahay tiri maxaa dhahaa meeshaan aan joogo aan ku noolahay 12 sanaan joogaa. yacni waxay tiri ilmihii ani iskoole ii dhigtaan, alxamdulilah wax iga halaysan male, waana shaqeeyahay tiri. waqtiga aan shaqada ku maqanahay waa dhararahay dhahda gorbay guriga u noqonay. intaan guriga joogo telefoonka waxay tiri ma dhigaay, asagana qadkoo iigu jiraa. waxaa is leedahay tiri dadkan qays iyo leylamiya. ninkii waxay tiri si fiicana isu fahanay maasha allah. aniga waxay tiri macnaha istaslamt, waaba isdhiibayba khalaas. waxay dhahday ninkan maahane nin kaleeto adduunyada ma joogo, nin ka fiican maba jirabo. waxay dhahday khalaas waxaan go-aansanay inaanba soo baxo oo asagana guri noo diyaariyo ama hotel aan degno, kadibna aan xoogaa 2 bilood lasoo joogo iska soo laabto. waxay tiri asagoo qadka iigu jira guriga anoo joogay, qadka asagoo iigu jira aan tikitka internetka ka goostay. waxay tiri waxaa la ii dhiman inaan baxo oo meeshoo joogo ugu tago oon soo aqalgalna, kadibna aan iska soo laabto. maxaa yeelay ninkan wuxuuba dhahayba aniga naagna ma qabi, ciyaalaa ii joogo, hooyadood kadibna naag maba guursaninbo.
ما شاء الله تبارك الرحمن كانوا كليت انت لقى هلا اسديد هذا waxay dhahday aan marka meeshaan aniga aan joogo Yurub waxay dhahday hal baati qofkii ku soo dhiibo mahad celiskiisa kama daaleysid waxay tiri dhibaaba looga qabaa dharka ma ogtahay marka waxay dhahday meesha asaga joogo gabar qaraabo aan nahay oo joogto aan intaan la hadlaa waxaan dhahay tiri abaayoy meeshaan maxaa lahaa dhar iyo waxaas lagama helaayay inaad soo baxaa rabaaye oo agtiina imaadee waxaa ii gadaa baatiyaal ii gad bijaamooyin bacweynayaal markaasay tiri ma imaanay haa see wax u jiraan hee markaasaa waxaan dhahay walaalay aniga dadka dhan waa ka qariyay qofna uma sheegin waxaan rabaa meeshaas inaan ku guursado yacni nin meeshaas joogo inaan isguursano aniga aan u imaado kadibna aan soo laabto marka waxay dhahday nasiib wanaag magaalada oo ninka joogo ay gabadhana degan tahay markaasay tiri haye waaye hee ninka anima kasaa walaa inaa kasaysa in kale ma ogiye laakiin kolley waa kuu tilmaama haddaa kuu tilmaama inaa garatidaa laga yaabaa haye waaye ha ii tilmaan waxay tiri horta gurigii waa aboosteeyey ilmihii qofka oga tagan lahay gabar oo hadda dhow imaatay oo aan waddanka saas u kala aqoonin oo weli qaxooti ku jirto aan kala ballamay ilmihiina waxaan dhahay hooye waa baxaa 2 bilood camalaa maqnaana dad waaweyn oo ishayn kara waaye saasuu ogaada anigana waa insha allah waa soo noqonaa gurigii waa ka ballamay gabadhii oo ilmaha ii hayn lahayd waa keenay maxaa lahaa wax lee ii dhimanay tiri inaan baxo tikidka waa ii go-an yahay wax kaloo dhiman ma lahan maxaa yeelay aniga indhihii aan wax ku arki lahayba ninkaan ka dhigay iyo dhegii aan wax ku maqli lahayna ninkaan ka dhigay marka waxaa maqli jira hadda ka hora anoo uur leh oo cunugii ugu horreeyay uurkiisa anoo leh walaashay aragtay markaasay waxay tiri ninow naxariis badanow nuunaha isiiyo naas jooga ii jilciyo jisadiis janno waay hadda marka sheekada way isbedeshay waxay noqotay ninow naxariis daranow nuunaha igu dayaco naas jooga ii jilciyo jisadiis jahannamo waay ilan qayaanadiyaa badatay hadda sidii hore ma aha hawsha dadkii hore ma aha naagii hore ma aha luqaafe iyo qayaanay barteen nimankii hore ma aha maahanohe marka waxay dhahday gabadhii waxay tiri gabadhii waa u tilmaamay ninkii magaciyaa u sheegay meeshuu degan yahay sababtoo ani waxay tiri hadda ka hor alaaba oga dirsada meeshuu kasoo dhiibay iyo cinwaankii iyo wixii oo dhan waa haayaa hay dhahday wixii haddaa u tilmaama gabartii afkay gacanta saartay naxtin waxay dhahday horta ninkaa magaciisa ma taqaanaa magacooba leeyahay magaciisaba waxaa dhahaa ureema dhaliye naagna wuxuu qabaa seefteeda galka ka baxsan tahay oo carabka intaas jeedo naagtoo guursadana way ka furee cunugii loo dhalane iyadaaba inkirayso weligiisna naagoo intuu guursaday oo uur u yeelay oo waddanka oga dhaliya maba jirtaba kulli wuxuu dhahaa makaa dhalin kari waddanka aad haddii lacala naagtiisa oo ka qariyo oo maxaa dhahaa naagta uur ku soo baxo naag kale oo guursado naagta uur ku soo baxo hadday naagta fahantana wuu furaa haddaysan fahminna wuxuu leeyay walaalay wax ma kuu sheegaa $50 helo waa kuu soo dhiibaahe orod Soomaaliya aad kaas maaba aroosi rabtaabo waxay dhahday wallaahi fadhigii aan fadhiyay gabadhii ii sheegay 5 kiilo iga gooday naxdin darteed 15 maalin waxay tiri message-na kama rudinin yacni message walba oo soo qoro ma ka jawaabaynin taleefon walba oo soo dirana ma ka qabanaynin 15 beri saasa ahay dhahday shaqada ijaaso ka soo qaatay fasaxaan soo qaatay guriga imaaday waxay dhahay 15 beri dhawanka iyo gacanta isku kor saarnaayeen qaracan war adduunka nin la aamina ma jiro miyaa subxaanallah waxay dhahay 15 beri kadib ninkii waa la hadlay waxay dhahday asagiyaaba dacwo qabo station ii wado saan maxaa iigu galee markaan ku jeclaaday markaan saan kuu noqday markaan kuu soo go'ay waxay tiri ilaa ay hadda hal jawaab xataa kama hayo warniyow naag ma qabtaa naagta ilmaha kuu dhashay ma qabtaa mayana male haana male mawduucaas markaa furo mawduuc kaloo aadaa dhinac kaloo ka baxaa waxaan dhahay tiri walaalo wax ma kuu sheegaa faraha iga qaad marka walaalay waxay dhahday hadda go-aan waxaaba ku gaarayba inaanan nin dhan ma bariday aanba dhihinbo sababtoo waxay tiri kaa ilmo u dhashayna waa xun yahay kii cusub oo isfahantiinne qayaano iyo lugoysma leh u qarsan marka aniga ahaan
gabadhaas walaashay eh waxaan kula taliyey waxaan dhahay horta laa tastaslim adduunyada horta ha isdhiibin maalin walba rajo cusub ay leedahay marka saaxiibay ani waxaan ku leeyahay ha rajo dhigin waxaa laga yaabaa boqolkii halaa ku jiray inuu ilaahay kula kulmiyo mid ilaahay dartiis kugu jeclaado oo ilaahayna kaaga cabsado runtana kuu sheego marka hore horta naftaada la heshii naftaada saaxiib la noqo iskuna kalsoono wax kaa halaabay ma lahan marka asxaabteyda qaaliga ani horta gabadhan sheekana dhex martay ay iiga sheekayso waay maahane wax tale iyo tusaale ay soo weydiisay ma lahan asxaabteyda qaaliga haddii aad ka hesheen videoga subscribe-ka like-ta share-ta commentiga nagu caawiya aadaa idinkugu mahad celinaa